وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن. بسم الله الرحمن الرحيم. لمان أمد الصوماليات ميل كستا جوجتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيمة بدن كدب waxaan halkan idiga soo gudbinayaa xalqada saddexaad ee barnaamijka Hami iyo Horumar. xalqadii koowaad waxaan ku soo qaadanay han sare iyo halgan adag. xalqadii labaadna waxaan ku soo qaadanay ahdaaf qoran iyo qorshe cayiman. labadaas xalqo waxaan oo horay ay ahayn xalqooyinkii u baxay. maanta waxaan qaadan doonaa xalqada saddexaad oo tiirka ka hadlaysa saddexaad ee horumarka insaanka iyo guul inuu gaaro marka uu rabo. waxayna ku saabsan tahay ciwaanka la yiraahdo joogtayn iyo kamira dhalin. joogtayn maxaa loola jeedaa? qofku waxaa laga yaabaa inuu boqolaal mashruuc maskaxdiisa ay ku jirto, laakiin ugu dambeynta mashruuc kasta markuu bilaabo uu ku fashilmo ama uu dhamaysmo. sidaas darteeda si nolosha guul aad u gaarto waa inaad shaqada aad bilowdo aad joogtaysto. soo joogtayntu waxa waaye awoodda nagu riixaysa ee na dhaqaajinaysa ilaa aan ka gaarno ujeedadii nolosha aan kala hayno ilaa aan ka gaarno. waxaa laga yaabaa inaad leedahay ahdaaf qoran, qorshe cayiman, inaad hansara leedahay, laakiin haddaadan joogtayn karin macnaheedu waxa waaye way adag tahay nolosha inaad ku guulaysato. sidaas darteeda joogtayntu waa cunsurka saddexaad ama qodobka tiirka saddexaad ee ugu muhiimsan insaanku markuu rabo horumar inuu gaaro. inta badan bani aadanka cilmibaarisyo badan oo la sameeyey, inta badan bani aadanka waxay sida badan culays badan iyo dhib badan ku qabaan inay runtii joogtayn ay sameeyaan. waxay yihiin waa good starters, wax waa bilaabi karaan inta badan bani aadanku, laakiin way adag tahay inay wax dhamaystiraan. mar allaala markii ay dareemaan calaamado in ay guul darro la kulmi doonaan, isla markii waa isdhiibayaan, waa jiidayaan, iyagoo laga yaabo guushii inay u jirto qaaba qawsayn oo adna wax yar inay u jirto macna. sidaas darteeda joogtaynta camalka in la joogteeyo waxyaabaha ilaahay ugu jecel yahay ayay ka mid tahay. rasuulkuna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ahabbu al-a'maali ila allahi adwamuha wa in qalla. acmaasha ilaahay wuxuu u jecel yahay midka daa'imta ah ee jirta haba yaraadaane. soo camalku sidiisa dhanba haddii uu jiro uu joogtayn uu leeyahay oo qofku ka mira dhalin karo wuxuu noqonayaa wax weyn ayuu runtii noqonayaa. sidaas darteeda joogtaynta waa cunsur aad muhiim u ah oo nolosha bini aadanka runtii uu ku guulaysto. qofba qofka uu ka adkaysi badan yahay, uu ka dulqaad badan yahay, uu ka joogtayn fiican yahay, waa ka guulaysta og yahay nolosha, waa ka guulaysta og yahay. sababtoo ah caqabad kasta ee soo wajahda wuxuu u helayaa xal ayuu u helayaa si caqabadaas meesha uu iskaga bixiyo. waxaan tusaale idinku siinayaa nin la yiraahdo taariikhda Thomas Edison wuxuu ahaa ninka ikhtiraca ama soo saara korontada maanta oo anagu aan fiirsanayno dunida adduunka dadka ku nool oo dhan ay ifsanayaan oo ay wax ku qorayaan, ay wax ku akhrisanayaan. korontadaas ninka soo saara Thomas Edison ayaa lahaa. ninka korontada markuu soo saaraya aad iyo aad ayuu dadaal badan ugu bixiyay. wuxuu fashilmay ayaa la dhahaa ninkaasu 9999 mar. ma qiyaasi kartaan inta ay la eg tahay? waa 9999 mar. markaasuu wareegii 10 kunaad ayuu ku guulaystay inuu korontada hadda uu soo saaro. markii guuldarradaas uu la kulmaayay dad fara badan oo asxaabtiisa way ku qoslayeen, way ku jeesjeesayeen, waxay dhahayeen adiga waxaa tahay faashil kabiir, nin aad nolosha ugu fashilmay, mar kasta waad fashilmaysaa, waay ad waxaan u daba taagan tahay, ma iska daysidu waaba ku fashilantay. markaasuu wuxuu ku oran jiray maya anigu ma fashilmin 9999 mar ma fashilmin, laakiin 9999 tijaabo oo cusub ayaan galay. بمعنى تجابك كسته أو جلو وحيقول له وين يسي وجديد أو لحي إنه جار قفك إنتين لأب أيوه لحي جوكتين أيوه لحي آد أيوه رنتي قطر هاي حاجة جوكتين تا حاجة كاميرا لينتا حاجة جوان أذيجا إلى أو كجاري سو قف كسته إذا كمية بليز فضلا هيسبيبين هنقوسا إسلام مركي
ay ku soo wajahdo caqabad isla markii aad dareento inaad guuldarro ku dhowdahay xataa haddaad guuldarraysato dhib ma laha waxaa la yidhaha alfashalu bidaayatu najaah yani guuldarradu waa bilowga guusha waay hadda haddii aad guuldarraysato biri ayaad guulaysanaysaa laakiin adigu ha isdhiibin marna ha isdhiibin nin la yidhaahdo Ray Kroc wuxuu ahaay madaacimta ama maqaayadaha McDonald's ayuu madax ka ahaa jiray waa maqaayad aad u ballaaran oo dunida meelo fara badan oo kamid runtii ku yaala ninkan wuxuu leeyahay ma jiraan wax loo dhigo joogtaynta wax loo dhigo waxaa laga yaabaa qofka inuu yahay qof caqli badan laakiin inaad caqli badan tahay ma kuu suurtagelihaysa nolosha inaad ku guulaysato inaad tahay hibo qof leh ayaa laga yaabaa boqolaal hibo leh ayaa nolosha ku faylgaroobay oo waxba ka qaadi waayey qasab ma ahan inaad aqoon fara badan aad leedahay boqolaal PhD wadata ayaa wax ay qabtaan nolosha waayey laakiin wuxuu leeyahay qofku hadduu leeyahay joogtayn iyo ka miro dhalin qofkaasu wax kasto nolosha waa gaari karaa sababtoo ah mar kasta oo aad wax joogtayso oo aad joogtayntana waxaa lagaa doonayaa markay wax kuu suurtageli waayaan inaad hab kale ku daydo saana ku suurtageli waysa saan ku day saana ku suurtageli si kale ku day mar kastaba si cusub iyo qorshe cusub iyo new thinking iyo fikir cusub la imaan marka dambe waa guulaysanaysaa waa qaacidadii dhihi jirtay man jadda wajadda walaja qofkii dadaalo oo dadaala ugu dambayn wuu gaaraa ama ujeedadiisa wuu gaaraa waxaan ku soo khatimayaa barnaamijkan waxaan ku soo khaldimayaa مثل أما مهمة قديمة أو نهيسة الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون dadka nolosha ku guuleystay dadka taariikhda sameeyay dadka bilyaneeris ka noqday dadka dunida oo dhan isbedel ummadaha ku sameeyay waxay ahaayeen dad aan quusan ayay ahaayeen dadka quustana ma guuleystaan insaanku hadduu yahay qof ay fududahay inuu wax yar ku quusto qofkaas nolosha ma guuleysanayo oo nolosha wuu ku fashilmaya sidaas darteeda dadka guuleysta oo taariikhda sameeya waa dad nuucaasa oo aan quusan oo joogtayn leh oo iltizaam leh oo waxooda ku dhagan oo persistence leh persistence macnaheedu waa joogtaynta iyo kamira dhalinta qofkan inuu kamira dhaliyo sidaas darteeda adigana waxaan runtii ka rajaynayaa inaad noqoto qof camalka uu bilaaba dhamaystir qof aan quusan qof haddii caqabad hor istaagto isku day caqabada inuu xalliyo haddii inta ka xiranta inta inuu waxeeyo nolosha haddii aad yeelato joogtayn iyo kamira dhalin haddaad yeelato waxaa xaqiiqo ah mashaariic badan iyo ujeedooyin fara badan oo noloshaadi kamida inaad ku guulaysan doonto insha allahu tacaala sida dadka najaxaba ay ku guulaysteen sababtoo waxay lahaayeen joogtayn ayay lahaayeen waxa iyagu ay rabaanna meel kasto iyo waddo kasta ay u mari jireen adigana waxaan ka rajaynayaa inaad joogtayntaas lahaato kamira dhaliso ujeedooyinka aad leedahay waxaan ku rajaynayaa nolol raaxa leh raad fiican iyo raalli ahaanshaha eebe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بالإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب فتلك معاني الخير خط بها الأدب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا